xaggee dadkii oo dhan aadeen ma meerayaal kale ayay u guureen mise qoom adduunyo kale ka yimi ayaa dadka oo dhan ka haystay wax kastaaba ha sababeene waxa aad noqotay qofka ugu dambeeya ee ku noolaada dhulka haddaba maxaad samayn lahayd ma sida boqorkii ayaad wax u cuni lahayd mise waxa aad degi lahayd qasriga boqortooyada Ingiriiska ama aqalka cad mise adiga oo qaawan ayaad suuqyada wareegi lahayd ilaa qofku arkaya ma jire mise gawaarida ugu qaalisan ayaad marba mid ka haysan lahayd inteesa ayay kula tahay inaad sii noolaan lahayd haddaba maanta waxaan idla wadaagaynaa waxa dhici lahaa haddii aad kaliya ku soo harto adduunka iyo sidii aad u sii noolaan lahayd inta aynaan u galin barnaamijka fadlan like saar muuqaalka si uu dad badan u sii gaaro mahadsanid subax ayaad soo toostay waxa aadna ogaatay inaad tahay qofka kaliya ee ku soo haray dhulka wax sharci ah ma jiraan adduunka dhan sida doonto ayaad ka yeeli kartaa haddaba qodobka koowaad waa inaad ka sii faa'iidaysataa dhammaan waxyaabaha aad jeceshahay ka bilow khudaarta iyo miraha aad jeceshahay ka cun inta aad ka cuni karto sababtoo ah waqti yar gudahood dhammaan waxyaabahan waxa ay noqonayaan kuwo xumaada ama qudhma qodobka labaad waa inaad heshaa meel aad ku noolaato haddii cunto biyo iyo meel aad ku noolaato ay yihiin baahiyahaaga asaasiga ah waxaad is leedahay inaad hesho meel aad ku noolaato waa midda ugu fudud oo waxaad haysataa dhammaan magaalooyinka adduunka oo guriga doonto aad ka degi karto balse ogow waa inaad ka taxadirtaa meesha aad degayso magaalooyinku waxa ay noqon doonaan kuwo halis ah maadaama oo aan cid dayactirta jirinna dhammaan dhismayaasha dhaadheer waa ay soo dumi doonaan roobka qabowga qorraxda iyo kulaylkuba waxay dhismayaasha ka dhigi doonaan kuwo daxalaystay oo isku soo duma sidoo kale dhirta ayaa bilaabi doonta inay ka dhex baxdo dhismayaasha dhinaca kale haddii aad u sii adkaysato waxyaabahan kuna sii noolaato magaalada hal danab oo magaalada ku dhaca ayaa gubi kara dhammaan magaalada maadaama oo aysan jirin wax dabdamis ah qodobka saddexaad waa inaad heshaa kayd shidaal kaas oo muddo badan ku sii hayn kara waxaad is leedahay qof ku celin karaa ma jiro oo waxaad aadi kartaa meesha aad doonto balse ogow ma aha muddo aad u sii dheer sababtoo ah dhammaan baabuurta doonyaha iyo diyaaraduhuba waxay muddo 2 sano gudahooda noqon doonaan kuwo aan waxba lagu falayn oo kharaab ah marka uu shidaalku dhammaado sidaa darteed waa inaad isweydiisaa inta aad safarka ku sii jiri karto qodobka afraad waa inaad heshaa qalab aad isku difaacdo haddii aad ka baxdo magaalada xataa baadiyuhu ma noqonayo mid ammaan ah sababtoo ah waxa jooga xayawaanadii duurjoogta ahaa libaaxyadii shabeelkii iyo madax kutidii sidoo kale waa inaad heshaa qalabka hawada sifeeya sababtoo ah waxaa jira in ka badan 400 oo xarumood oo nukliyeerka lagu kaydiyo adduunka maadaama oo aysan jirin cid maamushana waxa ay bilaabi doonaan inay qarxaan iyaga oo baabi'in doona qaybo badan oo ka mid ah adduunka qodobka shanaad waa inaad heshaa cunto aad ku noolaato marka ay noqoto cuntada magaalooyinku waa meesha ugu fiican ee aad cunto ka heli karto cuntooyinka qasacadaysan iyo kuwa adag ee kaydka ah waxa ay ku sii hayn doonaan sanado badan dhinaca baadiyaha inta badan xayawaanada dabjoogta ah waa ay dhiman doonaan maadaama uusan jirin qof xanaaneeya laakiin sidoo kale waxaad samaysan kartaa beer aad ka beerato cuntooyinka aad u baahan tahay sidoo kale waxaad u ugaarsan kartaa sidii waayadii hore qodobka lixaad waa inaad heshaa biyo aad ku noolaato maadaama oo aan dad kale kugula nooleen adduunka dhammaan xarumaha korontadu waa ay xumaanayaan mashiinada biyaha soo saarana waxa ay noqonayaan kuwo shaqagab ah sidaa darteed waxaad ku khasbanaan doontaa inaad barato habab aad u nadiifsan karto biyahaaga qodobka toddobaad waa inaad bilowdaa inaad wax barato sida xirfado cusub oo nolosha kuu sahli kara laakiin nasiib wanaag waxa aad heli doontaa buug kasta oo aad u baahan tahay maadaama oo dhammaan maktabadihii wada buuxaan haddaba waxaa laga yaabaa in sannadaha hore ay nolosha kugu adkaato balse waad ku noolaan kartaa dhulka adiga oo keligaa ah laakiin aan su'aal ku weydiiye ma jeclaan lahayd inaad noqoto qofka keliya ee dhulka ku nool bini'aadamku waa noole bulsheed taa macnaheedu waa bini'aadamku si wada jir ayay isu kaashadaan si ay u noolaadaan qoysas ayay samaystaan waana mid ay ka dhalato farxaddu haddaba waa inaad alle ku xamdi naqdaa inaad haysato dad ku jecel ogowna inta aad is leedahay in ka badan ayaa dadka kale u baahan tahay